go'aankii madaxweyne Dani ma noqon karaa mid isku soo dhaweeyo xukuumaddiisa iyo agaasimihii uu xilka ka qaaday ee BSF maxaa laga dheehan karay khudbadii uu jeediyay madaxweyne Siciid Dani inta badan dadkii isha ku hayay xaaladii magaalada Boosaaso madaxweyne Dani way ku ammaaneen hadal jeedintiisii halka dad kalena ay leeyihiin Dani danta u run sheegtay dhibaatadii ka dhacday magaalada Boosaaso ayuu madaxweynuhu sheegay inay eedeeda wada qaadanayaan dhinacyadii ishayay loona baahan yahay inaysan dib dambe u soo laaban wuxuu sidoo kale sheegay in Puntland oo waligeed hoobiye la isku adeegsan hoobiye la isku garaacay eedeedana inta badan ay yeelan doonto BSF hadda si uusan sii qodqodi doonin wixii hore u dhacay reer Puntland dhagta ayay ka maqli jireen hoobiyeyaal ayaa meel heblaaye ka dhacay xitaa wuxuu sheegay in nafsad ahaantiis uu maqli jiray in Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho ayaa hoobiye ka dhacay hadda se Boosaaso qaybo kamid ah ayaa lagu garaacay ayuu yiri madaxweyne Dani wuxuu sidoo kale sheegay inuu ka xun yahay in Puntland oo 23 sano jirsatay ay tahay markii ugu horeysay oo dhibaato noocan oo kala ka dhacdo hase yeeshee aan loo noqon doonin hadalka isimada odayaasha dhaqankii waxgaradka Puntland uu shaqayn doono Puntland awalba tala isin iyo waxgarad ayay ku timid haddaba daawadayaal aan dib u eegno hadaladii u muuqday inay dareenka shalaayada ahaayeen wixii Boosaaso ka dhacay ee uu jeediyay madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani mas'uuliyiinta dawladda iyo waxgaradka kala duwan ee Puntland iyo dadka Soomaaliyeedba ee uga tacsiyeysay intay wax gaareen waxaan aniguna maanta caawa rabaa inaan ku biiriyo in Ilaahay u naxariisto intii halka ku dhimatay u boogadhayo intii ku dhaawacantay uga tacsiyeeyo intii waxyeelada kala duwan ay ku soo gaareen iyo inta barakacday ee bulshadii magaalada Boosaaso waxaan la qaybsanayaa xanuunka muddadii hadda shaqaaqadu socotay aan la qabay oo habeen iyo maalin ula soo jeeday sidii arrinta loo xakameyn lahaa waxaan u rajaynayaa magaalada Boosaaso oo ah magaaladii la magac baxday Boosaasodii nabadda Boosaaso deeqa inay nabadeedii ahaato waxaan ugu baaqayaa dhammaan waxgaradka kala duwan ee reer Puntland gaar ahaan kuwa hadda ku sugan magaalada Boosaaso inay ka shaqeeyaan nabadda inay ka shaqeeyaan xasiloonida inay ka shaqeeyaan in magaaladu ay ku soo noqoto sidii dabiiciga ahayd sida horay ay dawladdu marar badan u cilaamisay dawladdu dadkeeda dagaal kuma wado diyaarna uma aha inay bulshadeeda dhexdiisa ay xabad ka rito ciidanka dawladdu waxay u dhisan yihiin oo sharci ay ugu dhisan yihiin inay ilaaliso nabadda iyo ammaanka bulshada reer Puntland waxaan halka uga baaqayaa dhammaan dawladda horena u amarnay in ciidan dawladeed xaaladda hadda Boosaaso ka jirta uusan xabad ka ridi karin ku sugnaadaan goobahooda qabsadaan shaqooyinkii sugidda nabadda ee caadiga ahayd ee hayn jireen ee booliisku hayn jiray waxaan halka baaq uga dirayaa dhammaan dadkii barakacay ee ka maqan magaalada Boosaaso inay dib ugu soo noqdaan guryahoodii waxaan dawladda sida aan horay ugu saarnay gudiyada ka shaqeynaya ee heerarka kala duwan ah heer gobol gobolka bari degmooyinka Boosaaso iyo Carmo iyo degmooyinka kale ee dadkaasi gaareen mas'uuliyiinta ka shaqeynaysa iyo mas'uuliyiinta wasiirada ah ee maanta ku howlanaa sidii dadkii barakacay ay u gaari lahaayeen oo wasaaradda arrimaha guduhu ay hogaaminaysay waxaan iyagana farayaa in ay gargaarka bini'aadanimo ay wadaan ay sii kordhiyaan iyaga iyo dadka muxsiniinta ah ee ganacsatada ah ee gacanta ka siinaya waxaan rajaynayaa bulshadaasi inay goordhow ku soo noqoto deegaanadoodii guryahoodii oo nabad ah waxaan halka u sheegayaa dadka in dhammaan hay'adaha dawladda iskuulada jaamacadaha xarumaha caafimaadka dib ay u shaqay galaan birito oo ugu horeyso dekedda magaalada Boosaaso waxaan halka runtii ka cadaynayaa propagandada faraha badan oo dadka khalkhalka gelinaysa
in laga daayo, in nabadda laga shaqeeyo, in nabadda loo hiiliyo. intaa markaan ka tago waxaan rabaa halka inaan uga mahadceliyo dhammaan waxgaradkii kala duwanaa ee isugu jira isimada, culummada, cuqaasha, mas-uuliyiinta dowladda ee ka qayb qaadanayay sidii magaalada nabad loogu soo dabaali lahaa, qalalaasihii dhacayna loo soo afjari lahaa si nabada ah. iyagana waa uga mahadcelinaya dadaalka ay qabteen. waxaan kaloo u mahadcelinayaa dhammaan ciidamada kala duwan ee Puntland oo ku howlan inay ilaaliyaan xasiloonida iyo kala dambeynta, ilaaliyaan sharciga iyo dowladnimada. ciidamada kala duwan ee ka qayb qaatay ee geesiyaasha ah sidii ay u sugu lahaayeen nabadda dalka waan u mahadcelinayaa. waxaan u mahadcelinayaa ciidamada BSF ee runtii gartay waajibkii loo igmaday inay gutaan oo uu madaxda ka yahay Generaal Amin Xaaji Khayr, haddana ku sugan buuraha Galgala oo ah inay ka difaacaan Puntland la dagaalanka argixisada. ciidamada BSF shaqadoodii bay ku jiraan, waa ciidamo dowladeed oo hawshooda wata. waxaan ka xumahay dhaqanka aan fiicnayn oo dowladnimada u fiicnayn oo dadnimada u fiicnayn oo agaasimihii hore ee BSF uu xilka inuu ku wareejiyo uu ku diiday. arrinta maanta dhacday ayaamihii lasoo dhaafana sababtu ahayd. waxaa la wada ogsoon yahay warqadaas beddelka ah inaan qoray 24 bishii hore, muddada intaa la eg maantana waa bisha 24keedii. dhowr beri ka hor ayaa xabad u horreysay dalka ka dhacda. waxaan rabaa bulshada reer Puntland inaan la wadaago xaqiiqada dhabta ah iyo xaaladii la soo maray. tikreetadaas markii ay soo baxday, dowladda Puntland sida caadiga ahayd ee ay u soo saari jirtay iyadoo dardar gelinaysa nidaamka dawliga ah, muddadii hadda aan xilka haynin ay ku jirtay inaan dib u habeyn ku sameeyno dhammaan hay-adaha dowladda si dabiiciya, si dalku oo hore ugu socdo. runtii waxaa naga hor yimid muddadii aan xilka haynay wax aan nagu dhicin oo ah in la diido isbeddelkaas. isbeddelkaa la diiday dabcan waa khiyaano qaran, waa xadgudub dowladeed, laakiin waxaan xeerinaynay xaaladda iyo dalka meesha uu marayo. muddo dhowr iyo 20 beri ah ayaa dowladdu waxay ka dharsugaysa inay hawshaas dowladnimada ay fusho. waxay mar walba u taagnayd tala kasta oo suuragal ah oo aanan wax u dhimayn nidaamka iyo dastuurka iyo xeerarka aan dhigannay inay dowladda Puntland ay qaadato. nasiib darro dadaalkaasi ma uusan hirgelin, waxaana aad looga shaqeeyay inuusan hirgelin oo carqalad ay ka timaado sababo aan hadda ku talinayn inay yihiin sababo sax ah ayna ahayn. arrintaas runtii waxaa ka dhashay in ciidamadii dowladda oo sugaya ammaanka, ilaalinaya kala dambeynta, in weerar lagu qaaday. weerarkaasna waxaa ka dhashay ciidamo in ay dagaal ka dhaco. runtii dagaalkaas kooban oo ciidamadii gadoodsanaa iyo ciidamadii dowladda dhex maray, waxaan maleynaynay inuu intaa ku ekaanayo dhexdooda ah, laakiin waxaa nasiib darro dhacday in hoobiyaal magaaladii afarteeda koona loo qaybiyey oo dhimashada iyo dhaawaca iyo burburka faraha badan ee soo gaaray magaalada Boosaaso sababay, iyadoo aanan qiil loo haynin. maxaa yeelay ciidamadii hor fadhiyay oo xabadeynaya ma aha, aagii ma aha, sabab loogu rido magaalada oo nabad ah fasiraad bay u baahan tahay.